sugnaa aniga markaa kala hadlay sida uu u dhaceen iyo halkeedaba waxaan ognahay madaxweynaha hore madaxweyne kastoo hore oo Jamhuuriyadda Soomaaliland ama ha noqdo madaxweyne Muuse ama madaxweyne Daahir Riyaale ama madaxweyne ku-xigeenada kale ee nool waxay leeyihiin maamuus cad oo sharciya oo dastuur ku yaala bismillaahi raxmaani raxiim maanta ay bishu tahay 1 December 2025 maalin Isniina waxaan halkan warbaahinta jecelahay inaan kula wadaagno warbixin ku saabsan dhacdadii ka dhacday maanta madaarka caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa waxa saaka ka dhoofay madaarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo uu baxay dalka Imaaraadka Carabta kaasoo markii uu soo gaadhay madaarka ay xogaa ka dhacdo muran dhex maray askartii ammaanka madaarka qaabilsanayd oo waajibaadkoodii gudanaya iyo dadkii sagootinaya madaxweynaha la socday qaar kamid ah taasoo runtii ahayd nasiib darro annaguna ka xunnahay in madaarka iyo muxuu ahaa safarka madaxweynaha carqaladaas inay dhacdo anigu wasiir ahaan markii ay dhacdaas dhacday waxaan ugu tagay madaxweynihii hore qolka VIP-da oo ku sugnaa aniga markaa kala hadlay sida uu u dhaceen iyo halkeedaba waxaan ognahay madaxweynaha hore madaxweyne kastoo hore oo Jamhuuriyadda Soomaaliland ama ha noqdo madaxweyne Muuse ama madaxweyne Daahir Riyaale ama madaxweyne ku-xigeenada kale ee nool waxay leeyihiin maamuus cad oo sharciya oo dastuur ku yaala kaasoo markay soo galaan madaarka in la siiyo maamuuskoodaasi oo ay ku soo galaan iyaga dadka caawinaya ciidanka ammaankooda ehelkooda iyagoo sharfoon qolka VIP-da madaxweynaha inay soo galaan hab maamuuskaasoo dhammaystiranna madaarka uu diyaar ugu yahay hase yeeshee nasiib darro madaarka Hargeysa maamulkiisu iyo wasaaraddu midna si official looguma soo wargelin bixitaanka